Gabar iyo wiil ayaa aqal galay. Markii waqtigii la seexan lahaa la gaaray, ayay gabadhii wiilkii ku tiri, "Xabiibi, waad ogtahay, aniga galmada hadda ayaa iigu horeyso, waxbana ka garan maayo, bal markii hore waxay tahay ma ii sharixi kartaa?" Kadib wiilkii ayaa hadalkii qaatay oo yiri, "Waayahay gacaliso, si fudud ayaan kugu fahansiinayaa. Xubintaada taranka waxaan ugu yeeraynaa xabsi, taydana waxaan ugu yeeraynaa maxbuus. Kadib maxbuuska ayaan gelinaynaa xabsiga." Markii u horeysay sheekadii sida ay ku dhacday. Markii ay shaqadii dhammaatay, ayaa iyada oo la daalan yahay lana faraxsan yahay, ayaa sariirta dhinac la isku garab seexday. Xoogaha kadib, gabadhii ayaa cod naxariis leh ku xasuusisay oo tiri, "Xabiibi, sida muuqato, maxbuuska xabsiga ayuu ka baxsaday ee aan ku soo celino." Kadib wiilkii oo dhoolla cadeynaya intuu dhinaceedii isu rogay ayuu dhagta ugu sheegay, "Waayahay, aan xabsiga ku soo celino maxbuuska." Sidii ayaa mar labaad lagu tuurtay, ileen gabadhii ciyaartii ayaa la macaanaatay. Xoogaha kadib ayay sidii oo kale dhahday, xabiibi, maxbuuska xabsiga ayuu ka baxsaday." Kadib wiilkii ayaa ugu jawaabay mid la mida tii hore. Shaqadii ayaa mar saddexaad lagu ceshtay. Sidaas ayay habeenkii oo dhan ku jireen. Maxbuuska xabsiga ayuu ka baxsanayay, kadibna xabsiga ayay ku soo celinayeen. Kadib wiilkii uu daalay, tabartii ayaana ka dhamaatay. Tookadii shanaad, markii 10 daqiiqo ka soo wareegatay, ayay gabadhii sidii caadada ahayd tiri, "Xabiibi, maxbuuska mar shanaad ayuu ka baxsaday xabsiga." Markii oraahdii ay afkeedii ka soo bixinaysay, wiilkii ayaa qaylo afka furtay oo yiri, "Na hoogto maxbuuska in xabsi daa'im lagu xukumo maad mooday. Naga daa, nafta ayaad naga bixisay." Sheekadan dhabtii waa sheeko aad aan ugu qoslay, kana qoslin doonto dad fara badan oo daawado. Haddaad ka heshay fiidiyowga, like saar, channelkana subscribe noo saar. Waad mahadsantihiin.